madax dhaqameed waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa ku baaqay in la adkeeyo nabadgelyada isla markaana ay ka soo horjeedaan cid kasta oo farafaraysan nabadgelyada waxaan odayaashan iyo waxgaradkan oo arrimahaasi ka hadlaya kamid ah adaladoodii anagu waxaan ka hadlaynaa hadallada beenta ee laga fidiyay Ciise Muuse war xumo tashiilka waxaan leenahay beeshu waa nabad beelaha nabad baan kula nool dawladda nabad baan kula noolayn annaga deegaankayagu nabad weligiiba ku dhaqna maanta Soomaaliland nabadgelyada taala iyo dawladda dhisan iyo dalka horumarka uu gaaray annagu dad dib ku kicinaya oo haddii dadka qaarkood ay doonayaan inay siyaasad kaga faa'iideystaan oo dib keenaan dad raacsan oo waafaqsan manihin horta haddaad maqasho awal bari waxa uu xuduna meesha la yiraahdo burco maantana kullu waxa la wixii oday u ahaa halkan ay fadhiyaan fadhigay fadhiyaanna waxay isugu yimaadeen oo odayaasha ay ku dhan yihiin iyo xogayaal laftiisa aan ku marti qaadnay shirka annagu beelaha iyo dersiyada iyo dawladaha jaarka nahay ee nagu dhow intaba waxaan kula noolaanaynaa wax la yiraahdo nabad anigu hal qodob baan ka hadlayaa halka qodob oo ah war ka baxay ilaacadaha ama miidiyaha oo la leeyahay wuxuu ka yimi nin xildhibaanaha beesha Ciise Muuse ka tirsan waxa weeye xildhibaan ma qumana in dadka la soo colaad galiya ma qumana colaad annaga nagu jirto dhaxay Ciise Muuse taalina ma jirto midaanu dawladda u qabnaana ma jirto nabad iyo barwaaqo iyo walaalnimo ku baaqaynaa ugu dambeyntii kulankan ayaa waxa soo afmeeray xogayaha dawladda hoose degmada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan waxaan kaloo idinku mahadnaqaynaa shirkan nuxurkiisa oo iska wada daba tiraahdeen oo ah nabadgelyada dalka inuu waajib cid kasta ku tahay haddaanu xukuumadda nahay waa soo dhaweynaynaa anuu raxaro maqal ninka runtii ku baaqaya dagaal iyo ninka maanta doonaya in colaad wadankan ka abuuro ka alooso waxaanu leenahay ilaahay ku soo hadeeyay annagu haddaanu dawladda nahay wanaag baanu dadka shacabkayga kula dhaqmaynaa nabadgelyo daradana waanu ka soo horjeednaa Ibrahim Faarax Macaan iyo Qibal TV Burco